asxaabta ku taxan leh waaye filmis meel walba aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan muuqaalkeena maanta waxaana kusoo qaadan doonaa xidigada ugu taajirsan hindiya ee filimada jila hadana aan ismuujin ama aan ku faanin lacagahooda waana kuwa jawi degan ku jira hadana filimada ka dhex muuqda oo guula iyo guuldarooyinba soo qaatay lacagaha heestaan ayay ka heleen filimada ee jilaan ama kuwa hanti kale leh hadaba aan isla fiirino xidigada aan lacagahooda muujin ama aan ku faanin ee ka mid ah Bollywood-ka. Jilaaga koowaad waa nin bateekaro waxaad ku taqaanaa inuu actor aan caadi ahayn uu yahay oo jilin wacan laakiin waxaa ka qarsoon inuu yahay mid ka mid ah actorada ugu taajirsan ee filim jila inuu hooyadiis kula nool yahay meel yar oo la dhaho Andheri inuu deeq u bixiyo lacag dhan 15,000 oo rubi bishii wuxuuna haystaa beero gaaraya 62 beerood. Jilaaga labaad waa Rajnikat waa xidig ugu weyn ee koonfurta Hindiya waana midka ugu weyn markay timaado xagga lacagta. Jilaagan lacagta uu haysto waxa ay sare u dhaafaysaa 2,500 crore wuxuuna sanad walba deeq u bixiyaa lacag aad u badan oo uu siiyo dadka u baahan. Jilaaga saddexaad waa Akshay Kumar waa xidig ka mid ah xidigada farakutiriska ah lacagahooda aan muujin ee nolol caadi ah ku nool inkastoo uu faraqa lacag waaliha ugu jirto haddana waa mid degan oo dulqaad badan waxaana shirkadda Forbes sanadkan sheegtay inuu yahay xidig ugu badan ee lacagta gacanta ku dhigay ama lacag ugu badan soo gashay xagga filimada iyo xagga xayeysiinta dhinac walba. Jilaaga afraad waa Junior NTR waa xidig caan ah oo cariga Telugu caanka waa xidig gacanta ku haysta lacag dhan 600 milyan oo dollar si kasta ahaatee ma ahan qof lacagtiisa ku faano oo wuxuu si caad ah u dhaxgala taageerayaashiisa ay cid walba oo wax kala dhaxeeyo. Jilaaga shanaad waa Amitabh Bachchan ee warbixintan ugu dambeeya waa shahanshaaga Bollywood-ka waa xidiga ugu guulaha badan Hindiya oo ruux walba ku riyoodo in uu maqaamkiisa gaaro waana mid aan lacagtiisa ku faanin qof walbana qalbigiisa u dhow inkastoo ay lacag ka soo galaan barnaamijyada sida Kon Banega Crorepati waa hadana midka ugu sahlan ee Bollywood-ka. Warbixintan inta ayaan ku soo afmeeraya haddaad ka heshana la wadaag asxaabtaada.